codkayga ma cid kale aan u wadaa maxamed cabdullaahi farmaajo haddaan noolahay oo nafta qabo asaan u wadaa asagana jooga annagana aan gaarno maalintaas haddii ilaahay yira waa muuqataa ifafaalaa jira dalkan hadda waxaa ku soo darsoontay marka baarlamaankan xitaa haddii la bedelo 70% inuu haddana ugu yaraan uu soo noqonayo 70% qofka markuu wareega koobaad ka kacana waa shamsi inaan lagu celi karin dadka ayaga kudlada hadday noqdaan iyo haddii kale waa shamsiyaa lagu qaadi jira dadka inta kan madaxweynaha xilka haaya ma ogiye inta kale la iskugu tegi jiray ninkan waa shamsi ma gaarayo wareega koobaad uu ku qaadaa haddii ilaa yira labadiba waa u muuqataa marka kawmaa layska siinaa waxaa hadda qadiijo soo noqotay kale ka soo qaad wasiir kale soo noqday ama xildhibaan kale soo noqday soo qaad oo noqonaya ka soo qaad xildhibaan codkayga ma cid kale aan u wadaa maxamed cabdullaahi farmaajo haddaan noolahay oo nafta qabo asaan u wada كلبي وعبرن ياهي ماشاد سلاده وافعنا له دلكان dadka inay samata bixiyaan waxa ay cabiran qofka ugu fiican isleeyahay hadii ilaahay xildhibaan iga soo dhigo qofka ugu fiican isleeyahay uu mudaya inuu dalkan hogaamiyo maxamed cabdullaahi farmaajo aan codkayga siiyo matalaada gobolka banaadir shalay gobol xildhibaan baa ka soo istaagay hoteelka ka muuqda xildhibaan carabu wuxuu yiri cid diidaysa aan aragnay iyo cid ogolaad annaga diidayna annaga diidan هريا جدا